maxkamadda sharafta leh waa salaamayaa sidoo kale dhammaan waan salaamayaa shacabka meesha fadhiya iyo dhinacyada dhammaantood mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan gudo galo si waafaqsan qodobka 119 gabagabada kiiskan mudane gudoomiye waxaan horay u sheegay anigoo abukaat cabsaaq xaaji cumar qareen oo ah cabdiwaaxid muxsin ibraahim in cabdiwaaxid muxsin ibraahim uusan ka tirsanayn wax gaar ah oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada laakiin uu ka tirsan yahay si guud wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan maxkamadda u cadeynay muwakkilkeyga inuu yahay shaqaale ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa uuna ku soo biiray wasaaradda 2016 bishii afaraad 3deedii mudane gudoomiye waxaan si buuxda u cadeynay inaysan jirin wax uu si gaar ah uga tirsanaa hadba waaxdii ama qaybtii baahi ay ka jirto ayaa la geyn jiray sidaas ayaana difaaceennii hore aan ku cadeynay mudane gudoomiye waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo xafiiska hanti dhowrahaba ay ku eedeeyeen labadaba in si dhuumaalaysi ah uu uga shaqaynayay waaxda sharciyada gaar ahaan xafiiska work permit-ka mudane gudoomiye waxaan anagana sheegnay oo aan cadeynay in aysan taasi ahayn waxba kama jiraan taasi inay tahay waxba kama jiraan ayaan cadeynay sidoo kale waxaa jirtay oo aan cadeynay baahi oo ku tagay xafiiska baahidaas oo ka jirtay wasaaradda waxaan sheegnay cabdiwaaxid inuu yahay qof ku takhasusay luqadaha ajaanibta kadib markii lagu soo qoray wasaaraddan in ay hadba meeshii luqadda baahi looga qabo lagu ataajgaran jiray mudane gudoomiye waxaan sheegnay cabdiwaaxid muxsin ibraahim inuu yahay qof ku takhasusay labada luqadood iyo sida oo aasaas ku ahaa soomaalida badanaa iyo adduunkaba looga hadlo luqadda carabiga iyo luqadda ingiliishka sidoo kale ay soo weheliso luqadda turkiga sidaas darteed waxaan cadeynay inaan la helaynin waraaqad gaar ah oo ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qaybaheeda kala duwan ha ahaato wasiir warqad u qoray ha ahaato agaasimo guud warqad u qoray ha ahaato agaasimo waaxeedka HRM-ka ee loogu talagalay warqad ka soo baxday oo sheegaysa in cabdiwaaxid uu ku meelaysan yahay waa hebel inaysan jirin mudane gudoomiye sababta kaliftay in macmiilkeenna wax gaar ah uusan ugu qornayna ayadana waan cadeynay oo baahidaas ayaa jirtay mudane gudoomiye waxaa jirta dabcan maadaama ay hadalkan ku soo noqday waxaan cadeynay hadalkan ah si dhuumaalaysi ayuu cabdiwaaxid uga shaqaynayay taas ayaa waxay raatiraysaa inuu yahay cabdiwaaxid si dhuumaalaysi uga shaqaynayna oo yahay shaqaale rasmi ah qaatana dawladda mushaar rasmi oo la yaqaana uusan ahayn noocyada kale ee aan horay u sheegnay ee shaqaalaha dawladda ah wasiirna uusan ahayn nin gudna qaato uusan ahayn agaasimo uusan ahayn xil haynin oo yahay shaqaale wix adlaalo wixii loo diray hadba qabta sidoo kale sarkaal aan sharciyeysnayna uusan ahayn waxaan ka jawaabnay mudane gudoomiye haddana aan si cad uga jawaabaynaa ilaa haddana aan loo helin jawaab waafiya waraaqad yani inay keenaan ama cabasho ay ka keenaan xafiisyadii uu ka tirsanaa oo ahaa xafiiskii waaxda maamulka iyo maaliyadda ay sheegayeen ma laga keenin wax cabasho ah oo ka timid ma leh sidaas daraaddeed waxay caddayn u tahay cabdiwaaxid mar walba waxaa la geyn jiray waaxdii baahi ay ka jirto waxa keliya waxaan ka dareemaynaa hadda markii uu sameynayay xeerlaaliyaha dacwad oogaha gabagabada uu sameynayay qaybtii koowaad ma soo hadal qaadin hal mar xataa cabdiwaaxid sababtoo ah waxa oo keliya ayuu dareemay in uu ku eedeynayo waaxdan muxuu u tagay taasina waa dacwad maamul oo waxaa laga ogaa process kale leedahay maamul dacwadeeda waxaan horay u cadeynay inaan waraaqadda loo qaadan karin ka tirsanaanta cabdiwaaxid waaxda maamulka iyo maaliyadda waxay ahayd inay keenaan cabdiwaaxid waraaqad lagu meeleeyey waaxda maamulka iyo maaliyadda mudane gudoomiye garsoorayaal kadib markii uu dhammaystay tijaabadii sida caadiga ahayd ee tijaabada sharciga loogu talagalay ayaa waaxdaas loogu attach gareeyey
waxaan ka jawaabnay emailkii ay soo qortay ayadana oo aan caddaynay inaysan jirin wax dembi ah ayadana ay caddaysay isla agaasimihii qoray ay caddaysay markii aan weydiinay su-aal ah cabdiwaaxid oo wax fal dembiyeeda faraha kula jira ma aragtay waxayna caddaysay oo ay dhahday wax fal dembiyeeda oo cabdiwaaxid faraha kula jiray ma jirto su-aasha isweydiinta mudan ayaa ahayd ka warqabka yani iyo dhaqdhaqaaqa shaqaalaha wasaaradda inuu waax tago qofka shaqaalaha waax kale oo tago yaa iskale mudane guddoomiye dabcan hore waxaan u sheegnay waxaa iskale waxay tahay waaxda maamulka iyo maaliyadda gaar ahaan xafiiska ama qaybta HRM-ka wasaaraddan waxay kaga duwan tahay waxay tahay wasaaradaha kale horeyna aan u sheegnay haddana aan sheegayna oo aan caddaynay in wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay leedahay qayb HRM la yidhaahdo oo aysan lahayn waax la yidhaahdo HRM sidaas daraaddeed asigoo xafiiska uuba ka tirsan waaxda uu ka tirsanaa waaxda maamulka iyo maaliyadda oo hoos tagto xafiiska HRM-ka ayuu ahaa waa inay ka warqabeen waa wax laga warqabay oo si guuda waxaan caddaynay lacagihii maray akoonka dabcan xafiiska akoon lacaga mara ayuu soo gudbiyey ayadoo ay ahayd si waafaqsan qodobka 110 iyo 114 in uu caddeeyo dembi inuu dhacay haddii uu sheego waxaa la rabaa qofka fal dembiyeedka gala waa inuu si fiican usii caddeeyo lacaga mara keliya ayuu sheegay lacagihii marana waxaan u kala sheegnay waxay tahay mid baan u sheegnay haddana ma rabo inaan ku noqdo keliya waxaan sheegayaa oo keliya si guud ayaan u sheegayaa dabcan waxaa jirtay lacag muraabaxa oo 2 jeer oo galay bilowga akoonnada la soo gudbiyey oo sanadka uusan joogin aan sheegnay $165 laga goostay ayaa ku qoran akoonka ayaad ka arkaysaa qoraalka akoonka $165 waa muraabaxa oo galay suuragal ma tahay 2021dii waaxda muusan joogin laakiin aan u qaadanay inuuba joogaba ayagoo say ka soo qaadeen asigoo joogay oo lacag $6 milyan lagu eedeynayo $3,000 in uu muraabaxo bangi ka soo qaato $3,000 deyn uu ka soo qaato sidoo kale suurtagal ma tahay isla 2021dii inuu ka soo qaato $3,000 ayadana muraabaxo bangi uu ka soo qaato taas waxay caddaynaysaa inay tahay aadii loo soo gudbiyey mid aan suuragal aysan ahayn dabcan waxaa kale sidoo kale caddaynay lacag $1,000 xataa waxay soo qaadeen oo ka timid USA ka timid oo dibadaha looga soo diray dabcan wuxuu ahaa cabdiwaaxid nin mas-uul ka ah reer dhan oo ilaa 8 qof ah mas-uul ka ah hadba wax allaale wixii reerkaas dhaqdhaqaaqiisay asigaa mas-uuliyadda hayay dad jaamacado dhigtay iyo dadkaasoo dhan oo mas-uul uu ka ahaa mudane guddoomiye sidoo kaleeto waxaa jiray lacago kale oo ayadana uu dhahay xeerlaaliyaha laga jawaabo u ahaa nin la yidhahdo maxamed maxamuud mikaa'il lacag gaaraysa ilaa $3,900 oo ku soo dhacday akoonkiisa oo ahayd 9,000 mar ah 2,700 mar ah iyo 3,000 oo mar ah lacagahaas waxay ka yimaadeen waxay tahay ninkaas waa nin ay ilma adeer yihiin sidoo kale waxaan rabaa in ayadana aan anigoo aan dheeraynaynin su'aal la rabay in laga jawaabo oo waxaa jirtay muhiim ahayd waxaa eedaa dhanna burburinaysa dabcan maxkamadda waxay weydiisay waxay ahayd hanti dhowre kaalintee ayuu ku leeyahay cabdiwaaxid muxsin ibraahim faldembiyeedkan dhacay waxa uu caddeeyey oo keliya u sheegay in cabdiwaaxid uu la ilma adeer yahay cabdiraxmaan cabdikariim dabcan waxay ka raaceen keliya magaca keliya taasina waa dadku waa isku noqon karaan qabiil ahaan waa isku noqon karaan laakiin wax ilma adeer ah oo jirta ma jirto haddii ilma adeernimo lagu qabsanayana dee ma garanayno sharciga meel uu kaga qoran tahay ilma adeer ayay labada qofood ugu qabsadaan mudane guddoomiye codsigayga ayaan guda gelayaa dabcan waxaan rabaa haddii maxkamaddii oga 1 daqiiqo oo ah qodobadii inaan sii iftiimiyo dabcan qodobada lagu soo eedeeyey muwakilkayga 241 horta ayada lamaba keeninba wax lacag ah ama wax xatooye ah oo ka qayb qaatay suurtagal maaha maba la keeninba sidoo kaleeto 360 ayaa lagu soo eedeeyey astaan shaabadeed astaantii dhanba waxaaba qaatayba oo maxkamadda horteeda la keenay wayba ka horreysayba mana sheegin xataa ninkii astaanta qaatay ma sheegin oo asigooba ka horreeyaba
caliyo cali waa uu ka horreeyey sidaas daraaddeed astaana lama keenin kale oo cusub oo asiga uu geystay waay mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in xorriyaddiisii ay siiso muwakilkayga sidoo kaleeto in wax allaala wixii ka xayiran in isigana ma ay u sii dayso maxkamadda sharafta leh si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed inay ka bariyeesho maxkamadda hada wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.